riyadan haddaad ku riyootid waxay kuu tilmaamaysaa amni iyo ammaan. waxay kuu tilmaamaysaa xanuuno haddii ku hayaan caafimaad, yacni shifaa. waxay kaloo kuu tilmaamaysaa nimcooyin badan, arsaaqad. waxay kuu tilmaamaysaa ka guulaysi cadaabo. intaan iyo in ka badan oo wanaaga ayay tilmaamaysaa. riyadan waxaa weeye aragtida malaa'igta raxmaanka. haddaad riyo aad ku aragtid, malaa'igaha magacyooyin ayay leeyihiin, mid walbana wax u qaasaa, hoolo u qaasay qabtaan ayaa jirto. insha allah muuqaal kale ayaan kaga soo hadli doonaa malag walba iyo waxay tilmaamayso. yacni hal malag, matalan malag jibraa'iil aan ku riyooday oo kale iyo micnooyinkiisa. hadda laakiin guud ahaan malaa'igtaan ka hadlayaa. waan soo dulmari doonaa hal riyo ayaana kaga hadli doonaa hal mowduuc. ku soo dhawow fasiraadda riyooyinka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. maalin wanaagsan walaalayaal. waxaan gudagalay mowduucii ahaa fasiraadda riyooyinka. halkaad igala socotaan waa fasiraadda riyooyinka gobsan. walaalayaal waa janan cusub. waxaan idinka codsanaa inaad sabskaraab saartaan, aad like garaysaan. haddaad nagu cusub tahay, kullibaad nagu cusub tahay, wixii su-aalo ahna aad iigu reebtaan qaybta commentiga insha allah, idinkoo soo raacinaya xaaladaad ku sugan tihiin. maanta sidaa intarogaad ku soo aragtay waxaa ka hadlaynay aragtida malaa'igta ayaan ka hadlayaa. insha allah haddii qof si qaas ugu riyoodin uu jiro, qaybta commentiga igu soo qoro, faahfaahin badan ayaa insha allah kasoo bixin doonaa. ugu horeen ninka hadduu ku riyooda malakul jibriil calayhi salaam. malakul jibriil calayhi salaam waxay kuugu bishaaraynaysaa jano. laakiin waxaa muhiim ah qaabkaad ku aragtay. malakul jibriil markaa arkaysi makuu dhoola caddeynay, ma faraxsanaa, saaxiib muu kaa dhigtay, makuu soo dhawaa. waxyaabahaasaa muhiim ah. haddee xaaladda sida ay ahayd ficlan waxay kuu tilmaamaysaa inaad tahay min ahlu janna insha allah, adigana aad dadaal badan aad la timaadid. haddii laakiin sida ay ka duwaneed oo xanaaqsanaa mise oo maxay ahayd ku canaananayay waxyaabaha oo kale haddaad kula kulantay, taan waxay tilmaamaysaa digniin, dhibaatooyin mise masiibooyin, fasaad. subxaan allah, wallaahu yaclam. haddaa riyo aad ku aragtid makaa'iil calayhi salaam, taa waxay tilmaamaysaa riyo kuu rumoobayso mise arsaaqad. ilaan waa malaga arsaaqada asige. qaybta ragga halkaasaan uga baxayaa. ninka xaaslaa wiilkaan weli guursaneen, yacni guud ahaan ragga hadday ku riyoodaan malakul jibriil mise malakul mikaa'iil hadday ku riyoodaan, micnahaasay tilmaamaysaa. waxaan u imaanaa gabadha la qabo hadday ku riyooto jibraa'iil calayhi salaam, waxay tilmaamaysaa uur hadday tahay ulaad raadis. waxay kaloo tilmaamaysaa nimcooyin badan, arsaaqad badan inuu rabbi ku arsaaqi doono insha allah. gabadha xaamilada hadday ku riyooto jibraa'iil calayhi salaam, waxay tilmaamaysaa inuu rabbi siin doono, inuu rabbi ku arsaaqi doono wiil, ilmaha caloosheeda ku jira inuu yahay wiil. sidaa intaasoo kelimahane ilmo baari ah, wiilkaas inuu noqon doono insha allah wiil baari ah. aragtada matalan ilmaha hadda inay caloosha ku jiraan inay wiil yihiin iyo inay gabar yihiin, casrigan hadda la joogo kombiyuutarada ayaa sheega, waa la ogaadaa. laakiin xilliga fasirka riyooyinka kitaabyada laga qori jiray, aaladaha ma jiri jirin. sidaa darteed marka hataa dad waxaa jira, maamuun waxaa jira aan ogaanaynin ilmaha calooshooda ku jira inay wiil yihiin inay gabar yihiin. marka hadaa riyadan oo kale aragtid, insha allah rabbi wuxuu kuugu bishaaraynayay ilmaha calooshaa ku jira inuu wiil yahay, oo wiil saalaxna kuu noqon doono insha allah biidnillah. fasiriin kale waxay yidhaahdaan gabadha xaamilada hadday ku riyooto malaa'ig, guud ahaan malaa'ig ay ku riyooto, waxaad ka digtoonaataa ilmahaagas caloosha ku jira inaad u bixisid magac saalix ah, magac wanaagsan oo diini ah. yacni sida dad waxaa jira la baxa magacyada gaalada oo kale. aragtida malaa'igta gabadha xaamilada waxay kaloo tilmaamaysaa fool fudud aan dhibaato lahayn insha allah. ugu dambeyn qofka ugu dambeeya waa gabadhan weli la guursanin.
hadday ku riyooto malaa'igta waxay tilmaamaysaa guur weliba soo dhow. waxay kaloo tilmaamaysaa nin wanaagsan, guur barakaysan, nin saalax ah. waxay tilmaamaysaa aragtida malaa'igta ka guuleysi waxbarashada, gabadha aan la guursanin. aragtida malaa'igta waxaa macquula inay tahay gabadh saalixad ah, wanaagsan, dhowrsan, li'aanoo riyooyinkan oo kale sidaa hore idinku soo sheegay munaafiq ma arko, umana badno. hadduu arkana waa digniin rabbigiisa tooba la jeclaaday mise wanaag. walaalayaal halkaasaan kusoo koobayaa. noo sheer gareey, la wadaaga asxaabtiina. jananka wuu cusub yahay, koor u soo qaada. insha allah faahfaahin kalena waa idin siin doonaa. wassalaamu calaykum waraxmatullah.